asalaamu calaykum maqaarti walba joogtiin mar kale maqal cusub ka igdan wararkii ugu dambeeyay suuqa akhbaarada la diiwaan gelinayo xaaladda Yande Monde oo ugu dambeyn gabagabowday Liverpool oo si shooga ku doonaysa Voltemage oo Newcastle Atletico de Madrid oo doonaysa in Inter Milan ka dulqaado Cristiano Romero kooxda Besiktas oo markaan ka shaqeynaysa xaaladda Dusan Vlahovic ha ka reebin Gagbo iyo mustaqbalkiisa iyo akhbaarada kale ayaan eegayna haddii muuqaalka hesho noola garay kanaalkana subscribe nasar haddii aan ku bilownana akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa warar badan ayaa la diiwaan gelinaya saacadii la soo dhaafay ilaa xiliyadii dambeeto haatan ugu dambeyn waxaa si rasmi loo gabagabeeyay tijaabada caafimaad mare xidiga lagu magacaabo Bruno Guimaraes xidigan ayaa 75 milyan ugu dhaqaaqay Arsenal wax walbana way soo dhamaadeen ugu dambeyn xidigii tijaabada caafimaad ayuu maray waa uu ka gudbay dhiilis dhan wax walba waa ay dhamaadeen sheekaduna way soo afjarantay Arsenal si smartiya oo aqliyeysan ayaa xaaladda uga gudbeen 75 milyan inaa ku hesho Bruno Guimaraes wax aan caadi ahayn waaye xidigan waxay u adeegsadeen oo kaliya inuu 29 jir noqonayo waqti dhow bala marka gunooyin dheeraad oo Newcastle hadii laacibka koobka la guuleysto la siinaya ayaa jira laakiin ugu dambeyn Newcastle waa la gaaday sida aniga isleeyahay adigu fikirkaada waana la wadaagi kartaa marka Tonali ayaa 100 milyan oo nadiif ay ku heleen 75 milyan haatan waxay ka bixiyeen xidiga lagu magacaabo Master Bruno Guimaraes marka adiga fikirkaada la wadaag muxuu Arsenal ku soo kordhi doonaa laacibkan ugu dambeyn sheekadii way soo dhamaatay Bruno Guimaraes waa laacib ka tirsan kooxda Arsenal rasmiyan dhilisdan tijaabada caafimaadna waa u maray dhinaca kaleetana xaaladaha hadda jira qayb waxaa ka noqonaya sheekada xidiga la yiraahday Yande Monde xidigan waxaa la soconaa in isjijiid badan sheekadiisa ay ka jirto labada dhinac ee heshiiska ay isku mari waayeen Real Madrid dal 110 milyan laga soo diiday 115 milyan laga soo diiday ugu dambeyn sheekadu waxaa lagu gabagabeynaya 140 milyan qiimo lacageed ah sheekadu way soo gabagaboweysaa war breaking ayaa jira oo ninka la yiraahdo Valonian Bertsberg oo daabacayo oo ku leeyahay RB Leipzig iyo Real Madrid haatan waxay ku dhow yihiin inay heshiiska gabagabeeyaan wax walbana la isku raacay dhinaca kale Fabrizio xaladii xilliyeedii dambe wuxuu sheegay in sheekadu ay dhamaatay dhil isdhan yahay wax walba la isku raacay laacibkan uu Madrid u duulayo tijaabada caafimaadna uu marayo sidaas ayuu Fabrizio isagoo ku adkeysanaya labada warbixin marka isku fiiriso iyo warbixinta ay daabicisa majalada kale lagu magacaabo Dabil iyaduna oo Jarmalka ka soo baxda dhammaan way isku dhow yihiin oo hal wax ay wada sheegayaan saddexda warbixin Dabil Valonian Bertsberg iyo Fabrizio dhammaan waxay confirm gareynayaan Yande Monde inuu ku biiray Madrid sheekadan la gabagabeeyay maalmaha soo socdana ama saacadaha soo aadan laacibkan uu noqonayo laacib Madridista ah marka sheekadu sida ayay ku soo gabagabowday soo kaleeto xaaladaha tajriiq qayb waxa ka noqonaya Vinicius Junior iyo Real Madrid waxaan la soconaa in haatan wada hadal uu socdo Madrid iyo Viniciusna ay wada hadal markaa ku jiraan xalay toole ilaa shalay waxa soo baxay warar sheegaya in wada hadal ku socdo sheekaduna dhexda lagu jiro kadib tababarkii Madridna ninkan iyo Perez wakiilkiisa qol isku soo xirteen la isjafayay 20 milyan ayaa miiska loo saaray Vinicius Junior iyo gonooyin dheeriya si uu heshiis ilaa 2031 qalinka ugu duuga kooxda kubadda cagta Madrid walito sheekadu rasmi maahan oo wada hadalku waa u socdaa miiska waxaa saaran 20 milyan iyo 4 sano oo heshiisa waa ilaa 2031 marka Vinicius Junior waxaa la doonaya Madrid inuu waqti dheer sii joogo 20 milyan markaan diyaar ay u tahay sida haatan wararka ka imaanaya Spain ay sheegayaan sida majalada Marca iyo ESPN iyo majalada kale lagu magacaabo The As dhinaca kale xaaladda Liverpool iyo weeraryahanka ee sida shooga ay ku doonayso Liverpool waxay doonayaan weeraryahanka tirsan kooxda Newcastle waxay doonayaan ninka lagu magacaabo Nick Voltemage laacibka la yiraahdo Nick Voltemage ayaa markaan doonayaan weliba waa si surprise ayaa laacibkan ku doonayaan Liverpool waxaan la soconaa in ninka la yiraahdo Nick Voltemage ay markaan rabaan Newcastle sababta ninkan u soo qaadatay waxay Alexander Isak ayaa Liverpool ku biiriyay seasonka horeeto bedelkiisa ayuu ahaa Isak ayaa 130 milyan ka soo bixiyeen haatanna waxay doonayaan inay Newcastle dib ugu noqdaan kana soo qaadaan xidiga lagu magacaabo Nick Voltemage ninkan ay Liverpool inaa ku hayaan sida majalada lagu magacaabo Give Me Sport daabacayso in majaladaha kale ee waaweyn ee England ka soo baxa dhammaan waxay warinayaan Liverpool si surprise si shooga inay ku doonayaan xidiga lagu magacaabo Voltemage marka Liverpool isbedel weyn ay rabaan weerarkooda inay ku sameeyaan xidiga badan ay doonayaan Barcola ayaa soo socda Ibrahim Mbaye sidoo kale wadada ayuu ku soo jiraa waxa ka reebin xidiga liya Nick Voltemage Zaid Elmi xidigii kooxda Lille ninka lagu magacaabo Master Matthew Fernandes Boro marka ciyaartoydaas oo dhan Liverpool ayaa wada doonaysa soo kale Liverpool waxa iska dhaqaaqaya
Gagbo waa laacib baxaya. Gagbo wuxuu ogolaaday Tottenham inuu u dhaqaaqo. Maalmihii ugu dambeeyey, labadii muuqaal ilaa saddexdii muuqaal ee ugu dambeeyey ayaa idin kula wadaagay xaaladdu markaan inay gabagaba tahay. Xiddigan uu aqbalay u dhaqaaqitaanka garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Laakiin hal arrin ayaa jirta. Liverpool diyaar uma aha laacibka inay iibiso. Haddii ay iibinaysana waxay doonayaan qiimo lacageedu gaaraya 80 milyan. 75 iska daa 80 ayay doonayaan. Tottenhamna waxay ka shaqaynayaan Xavinho 65 milyan ku qiimeysan. Haddii Xavinho waayaan waxay doonayaan xiddiga lagu magacaabo Pedro Neto inay doontaan oo Man City ay ka dulqaadaan si ay kula wadaagay muuqaalkii lasoo dhaafayaba. Si walba ahaatee, kooxda kubadda cagta Tottenham waxay ka shaqaynayaan helitaanka xiddiga lagu magacaabo Master Gagbo marka waa nin socda, waa nin dhaqaaqaya. Liverpool iyadoo markaan waxay taagan yihiin haddii aad baxayso waa inaan helnaa 80 milyan. Marka 80 milyan Gagbo hadday Liverpool ku hesho waa lacag aad iyo aad u fiican maadaama akoonkeeda lacago badan ay kusoo xaroonayaan. Marka lacago badan way ka baxayaan Liverpool. Barkool ayaa lacag badan ku qiimeysan oo 130 milyan haatan la leeyahay waa lagu soo xirigeli karaa. Isku soo wada duub sheekadu waxay noqonaysaa Tottenham waxay ka shaqaynayaan helitaanka xiddiga lagu magacaabo Gagbo. Sidoo kaleeto sheeko weyn ayaa jirta oo saacadii ugu dambeeyey la diiwaangelinayay. Xiddiga la yidhaahdo Guti Romero ama Cristian Romero laacibka Tottenham difaaca dhexe ugu ciyaaray xulka Argentine. Markaan Atletico de Madrid ayaa doonaysa ninkan inay afduubtaan sababtoo ah Atletico de Madrid dhowr mar ayay laacibkan isku dayeen way ku fashilmeen. Inter Milan ayaa haatan ku dhow laacibkan inay la wareegto wax walbana way dhammaadeen. 40 milyan ayayna rabaan Inter Milan inay ku qaataan walow Tottenham ay doonayso qiimo intaa ka badan. Ugu dambeyn waxaa soo wacay macalinka Atletico de Madrid jamhadda ninka hogaamiya Simeone isagoo laacibkan u sheegay inuu usoo dhaqaaqo dhanka iyo Wanda Beltano wax walbana halkaas diyaar ugu yihiin. Laacibkan Argentineska markaan waxaa si rasmi ah u doonaya macalinka Argentineska ee Atletico de Madrid hogaamiya ninka lagu magacaabo Master Simeone. Marka Pablo Simeone wuxuu doonayaa Inter Milan inuu ka dulqaado xiddigan lagu magacaabo Master Cristian Romero. Marka akhbaaradyada soo kordhaya wanalkeena wixii kaleeto sidoo kaleeto xaaladda xiddiga lagu magacaabo Dusan Vlahovic isaguna warweyn ayaa ka imaanaya. Vlahovic kooxda kubadda cagta United ilaa kooxo badan oo Chelsea ku jirto iyo Besiktas oo haatan kusoo biirtay ayaa si weyn u doonaya. Laacibkan xitaa Barcelona ayaa lala xiriiraya sida majalada Pages ee maalmihii ugu dambeeyay daabacisay. Waxay lahayd laacibkan bedel ayuu u noqon karaa xiddiga la yiraahdo Robert Lewandowski ama haddii la waayo Julian Alvarez. Si walba ahaatee Besiktas ayaa haatan ka shaqaynaysa helitaanka xiddiga lagu magacaabo Master Dusan Vlahovic waxayna doonayaan ninkan inay soo xirigeliyaan. Juventus diyaar ay u tahay laacibkan inay iska iibiso isaguna markaan wuxuu rabaa inuu ka baxo qalcadda Turin. Sidaa daraadeed kooxo badan ayaa ku dagaalamaya. Haatanna Besiktas ayaa qayb ka soo noqonaysa kooxaha sida weyn u raadinaya xiddiga lagu magacaabo Master Dusan Vlahovic. Marka akhbaaradyada soo kordhaya waan arkaynaa wixii kale tadiya muuqaalka shan walaal karay kana ka subscribe na soo kordha.